nafis siyaasadeed ayay ka raadiyeen madaxweynihii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo hogaamiyaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo weli farqaha ku dhagan dowlad wanaagga iyo horumarkeeda iyo Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe oo dowladda federaalka Soomaaliya ee waqtigan iyo tii ka horeysay ee si wada jir ah u sheegeen in aysan aqoonsaneen isu caanashubkiisa. haddaba laba qodob oo waaweyn oo ku saabsan kulankii maanta dhexmaray madaxweynihii hore ee dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo labadaasi hogaamiye ee midkood dowladda Soomaaliya ay diiday saxaanshiisa ayaa halkan idin kula wadaagaynaa. soo dhawo muuqaalka si gudbi la gare share gare oo la sii wadaaga asxaabtaada. madaxweynihii hore ee dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta waxa uu niyadis iyo sidoo kale salaan uu ugu tagay hogaamiyaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo la rumaysan yahay inuu ka shaqeynayo dana imaaraad iyo sidoo kale qaran dumis. sidoo kale waxa uu halkaasi kula kulmay isla Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe oo waarankiisa qabashadiisa ay ka laawatay dowladda federaalka ee Soomaaliya si loo badbaadiyo qarannimada dalka iyo isu haynta bulshada Soomaaliyeed. haddaba Axmed Madoobe waxaa horay sax ahaanshaha maamulkiisa u diiday Farmaajo oo maanta la kulmay iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud oo dowladdiisa weli muddo xileed ay haysato. haddaba maxaa keenay kulanka labadaasi xubnood iyo Farmaajo? ila xog ogaal ah oo lagu kalsoonaan karo waxay sheegeen in labadan ay dalbadeen oo maalmihii dambe ay u dirayeen dhinacyo kala duwan oo siyaasadeed Farmaajo, taas oo ay ku dalbanayeen in uu niyadis iyo sidoo kale weynayn uu u sameeyo si bulshada Soomaaliyeed iyo caalamka loo tuso in ay joogaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho isla markaana ay dareemeen kali ahaansho. haddaba Farmaajo ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa waxa uu ku sheegay war ka duwan kii hore oo ahaa in uu qaadacsanaa jiritaanka maamul goboleedka la yiraahdo Jubbaland, gaar ahaan in hogaamiye sax uusan ahayn Axmed Madoobe. waxa uu qoraal uu soo qoray ku yiray waxaan maanta booqasho iyo salaan aan ugu tagay labada hogaamiye ee kala ah midka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale kan Jubbaland. taasi waxay tusaysaa in weli mowqifkii Farmaajo uusan taagnin meeshii hore ee ahaa diidmada tooska ahayd ee Axmed Madoobe sax ahaanshaha maamulkiisa iyo in horay u sheegtay dowladdii madaxda ka ahaa in aysan aqoonsaneyn isu caanashubkiisa. haddaba lama oga waxa bedelay mowqifkii hore ee Farmaajo ee Axmed Madoobe, balse warar soo baxay waxay sheegayaan in xilligan uu jiro isu soo dhawaansho iyo sidoo kale wada hadal la rabo in lagu heshiisiyo Saciid Dani iyo sidoo kale Axmed Madoobe oo dhinaca iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. labadan xubnood ee weli Muqdisho ku sugan ayaa toddobaadyo ka hor isku dayay in ay surad xumeeyaan guud ahaan dalka, gaar ahaan magaalada caasimadda ah Muqdisho oo ah xudunta dalka, isla markaana ay ka been sheegaan amniga oo meel wanaagsan maraya, dib u dhiska dalka oo hagaagay, quruxda iyo bilicda. waxayna rabeen in ay gudaha magaalada soo geliyaan maleeshiyaad huwaysan oo wata wax laga mamnuucay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya oo ugu horeeya madaxweynaha dalka, iskana reebay gaadiid dagaal, beebayaal iyo baasuukayaal. laakiin surad xumeyntaas iyo qorshihii imaaraadka lagu shaqeynayay ee Axmed Madoobe iyo Dani waa laga diiday, laakiin weli waxay ku sugan yihiin magaalada caasimadda ah Muqdisho iyada oo aan sare loo qaadin hadallo dhowr ah ujeediyeen hoosan loo dhigay bunbuninna aysan u helin fariintii ay ka sideen imaaraadka carabta. haddaba adayka ahaan sidee ayaad u aragtaa labadan xubnood oo la sheegay inay yihiin kuwa raba in ay dumiyaan qarannimada dalka? dowlad kasta oo Soomaaliyeed oo la dhisana cagaha ay ku dhagaan maalin kasta iyada oo aysan ka fikirin dowladnimada Soomaaliya, masiirka shacabka Soomaaliyeed iyo wax kasta oo dani ay ugu jirto shacabka Soomaaliyeed, laakiin lagu eedeynayo in ay muhiim u tahay u shaqeynta dano shisheeye.